meeshan ordigaan bay u baahan tahay insha Allah waan rajeynayaa inaad noqoto hogaamiyihii burco ka sawata bixin lahaa iyagii baa deyngalaya marka waxaan leenahay waxa weeye waxba yaan laga doonin waafiya oo waxaasan bedelaya halkaas wax ka khaldan yihiin buu yiraahdaa qof aan midnaba ku oranayn baa lagu horkeenaya qasab ku dooranaysa meeshii geynaysa wax alaal wuxuu wadaba meeyna ogeeydi doonaya nin walba inaan meel u habeeyo taana la mid uma noqonaya una xuma la cunay la shaqaya muxuu waxa weeye marka iyaga ay dhexdooda jooga muxuu qiimaha ugu fadhiya muxuu maadsantahay Cabdi Casiis runtii anu ninku aqaan baanahay waana filayaa inaad wax tar u leedahay ummadda hankaas hadduu kugu jirana waxaan koran lahaa ka dhabe oo ma taqaanaa qorshaheeda iyo jadwalkeeda yeelo insha Allah tacaala kuna dayo maayirada kale ee magaalooyinka sida Hargeysa maayir Cabdikariin Axmed Mooga oo runtii laga si fiican bulshada uga tagay dadkuna jecel yihiin wax qabad la taaban karona magaalada kaga tagay insha Allah waan rajeynayaa inaad noqoto hogaamiyihii burco ka sawata bixin lahaa dhibaatada haysata mana doonayo inaad ku dadaasho inaad xildhibaan noqoto inaad maayirka degmada insha Allah tacaala u tartantaan oo maskaxda iyo maanka ku sii hayso qorshaheeda iyo taladeedana aad isu qaabayso mar haddii halkaas ku galay waan kugu dhiirigelinayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay meeshan ordigaan bay u baahan tahay sida Turkiga wax uga bedelay waxa gobolkan u baahan yahay dad muwaadiniina oo aan soo shaqo tagina u shaqeeyo ummadda ay u baahan tahay gobro marka musharaxiintan waxaan kula talin lahaa qof dadkii Ilaahay ka cabsanaya doonaya dadka wax ka bedelaan oo soo dhaweynayna dadkana in hadaf loo sheegaan lacag wax laga geybsan marka horeba qof dib musuqmaasuq u socda meeshan imaadaba oo soo sharaxa ummadda odayaasha dhaqankeeda wax soo xulay dadka kala reebana waxaan leeyahay laaluush qaadashada dadka ka daaya waa in qof ajenda wado marka horeba dadka wax u sheegaya dadka shacabka burcon aan waxaan ugu baaqayaa in aan qolo iyo qabiil waxba ku dooran ee ay qofka aragtidiisa iyo waxay ka arkaan iyo waxay ku yaqaanaan ay ku doortaan dadka shacab aanay garanayeen meelaha ka soo duulayay iyo qurbaha ka imanaya iska laga iibiyay waa laga iibiyay odayaal ka iibinayaan inta guri fariistaan oran heer hebel baynu leeyahay kana inoo sharaxaan nagu khasbayaan maalin walba hortaanu shakhsi baan go'aan ma ka qaatay inaan qof dambe nooca ugu odeeyaba laakiin dadka kale waxaan ugu baaqayaa inay sheekada ka baxaan dadkana in lagu doorto qofka aragti laga arkay iyo hamiga uu leeyahay iyo aragtidiisa dunida qofku markuu sharaxayo wuxuu dhiibtaa aragti baa lagu doortaa waxa buu fikirru faafiya oo waxaasan bedelaya halkaas wax ka khaldan yihiin buu yiraahdaa qof aan midnaba ku oranayn baa lagu horkeenaya qasab ku dooranaysa meeshii geynaysa wax alaal wuxuu wadaba meeyna ogeeydi marka xaq baynu leenahay tabtaan noqon maanta golaha deegaanka waqtigooda dhamaadayna la isku eedeeyo hantidii ummadda meel alaal meel ka baxdayba mid leeyahay qaadanaya waxaan kula talinayaa horta marka koobaad inaad bulsho u shaqeynayso ku soo talag inaad naftaada u shaqeysanayso ku soo talagal inaad waxa weeye bulshadii aad waxa weeye aad soo dooran lahayd inaad u shaqeynayso oo la dareen noqonayso ayaan kula talinayaa laakiin kula talin maayo inaad aduguna sida kuwa wadadooda marto niyo horta dawladda waxyaalaheena oo dhaba qabali ku dhisan marka laga hadlayo wareer waliba wuxuu keensanayaa waxa weeye qof xildhibaan buu keensanayaa laakiin xildhibaankay keensanayaan inay aqoon ku doortaan aqoon calaqal ku doortaan iyo wax qabad iyo muxuu bulshada horta qofkan ay soo dooranayaan muxuu waxa weeye marka iyaga ay dhexdooda jooga muxuu qiimaha ugu fadhiya muxuu ka iyaga dhexdooda wax ka xaga sare wax ka taray waxaan kula talinayaa horta shacabka Soomaaliland waxaan kula talinayaa xildhibaanada qarashka laga yareeyo oo qofka bini'aadanka markaad garab walba goosato oo waxa weeye si arxan daraa aad ula dhaqanto oo waxa weeye lacag la yaab leh oo qofkii waxa weeye ku meeshii masraxii ku yimaado wuxuu sooranayaa wixii ka baxay ka raadi laakiin marka aad qadiyad iyo waxa weeye hamiyad ku doorato waxa weeye qofkii waa la xisaabtamaya waxba kaama naqaadan waxaad noo qabat hadhowto laakiin marka waxa weeye adduun laga raadiyo ee waxa weeye qofkii la xaaladeeyo ee hawl badan iyo kharash badan uu ku soo baxo masraxii ku yimaado hadhowto ummadda wuxuu qabay waxa beegi maayo wixii ka lumay ka raadsu soranaya iyagii baa deyngalaya marka waxaan leenahay waxa weeye waxba yaan laga doonin qof walba qofka ugu macquulsan ugu sharafta badan leh hal saah la isoo eego hal iska soo dhex qabto dalka hal loo toosiyaan leeyahay way xildhibaanka maanta la soo dooranayo dhaqaale badan ma ku kacay nin walba waxa laga yaabaa markay ugu yartahay in $100,000 uu ku soo baxay oo markuu meesha sharaxan yahay 12 ka cishe la ololeynayo ayuu marfash 200 marfash buu sii furayaa xafiis oo qaadkii ka doonaya oo agabkii kala lagu dhex fariisanay ka doonaya oo mid walba isu xarif garanaya uu leeyahay intaas qof manayaaye wax may dhiibaysa marka in la soo furtay oo soo kacay ayaa meeshii imanaya kadina wuxuu soo xaraashay gurigii aabihii gurigiisii hantidiisii markuu wax kala waayay waxyaabo kala dad buu wax ka soo amahanaya soo dhow
qof ganacsataa ayuu lacag ka soo amahanaya si hodhow hadduu cod badan helo intuu ku soo baxa meesha qofkaa danihiisa uu fuliyo boloo dhan u calaamadiyo qaabkee waa isleedahay wax lagu doono anu waxaan lahaa dowladdu dadkana soo magacaawdo ninkii wax qaban waaya ha la eriyo laakiin haddii qof waliba cod shacab baan ku yimi madaxweynahan la teeta lahay oo halkaa iska fadhiyo iska dhakaaro oo wuxuu doonana iska cuno maalimaha kale la dooranayo iska oohiyo wax soconaysaa ma jiraan marka dowladdu iyadoo soo magacaawdo oo xilka laga qaado markuu mid walba 2 bilood joogo haddii waxba qaban waayo meesha la dhaafiyo anigu maanta haddaan xildhibaan noqon lahaa dhaqaale haddaan heli lahaa oo wax badanoo dowladdu ay siin lahayd bulshaduna ay garab istaagi lahayd ganacsataduna ay garab istaagi lahayd waxaan isla odhan lahaa wax badan baad qaban lahayd anoo ilaahay ka magangelaya inaan xoolaha ummadda mar walba cuno laakiin haddii laysodhahdo xildhibaankan ugu dhergo dhulkan u baayaco markiiba laygu soo yaaco deanna dadkuna ay cunis doonayaanoo magaranaysaa ay doonayaan nin walba inaan meel u habeeyo deanna lamid unbaa noqonaya uno xuma la cunaya la shaqaya